hubka ciidanka Soomaaliya ma taqaana hubka Ruushku ka baxo hubka Sacuudiga ka baxo hubka Masar ka baxdo yaa la isku soo ururiyay meesha hubka dowladda ku sameeyay hub waa weyn lama haysay jiray hambo 20 diyaaradood meesha ciidanka cirku maraakiibta baddu ma badnayn laakiin ciidanka dhulka infantry-ga ahaa ciidanka tagay Soomaalinimada cirka maraysa marka aan iman Mareykanka Pentagon la kulanno oo madaxweynaha Mareykanka la kulanno oo wasiirka arrimaha dibadda la kulanno haka diblomaasiyaddu ma xariiq luqadda fiican oo sheekada iyo waa iska hadalno taas oo qaacidaha la haysto yani ma baajaas waa ku number 2 waxa weeyaan waa faqsanahay in Soomaaliya inta aynan dawlad macquul ah ayna ka dhalan hubka lama ogolaanayo حتى حديث عادي الله أعطاه دولد وين دولد معقولة نقطة سوماليا هبك سوق لا وحاولت الجيران لا بقولوا ضد واحد جيران هذا ضد كشق يسوق قناصي ضد كاسي وهي يمني بهجرة ضد يمني ولا يقانا جرا حاجر ضد لجبوتيا وما كشق يستا مسؤولية وغيرها oo Mareykanku uu qabtay oo arkay waxa ka sheegi doonaa waa labo marka waxay soo marsiinayaan ciidamada jooga dalka bay soo marsiinayaan mas'uuliyiinta si tasallu oo soo marsiinay aduu yamadu waxay ku imanaysaa dooniyo hadii la qabtana waa la qabtaa hadii la soo baxdana soo baxday laakiin waa nadad weyn oo Djibouti cilaaqada leh oo Yaman fadhiyo jaadka Djibouti kaara qaad ma la keenay hubba lagu soo qaaday kaasto oo weyn ragi Ali Abdullah Sahel shaqaysanay weeyaan وجوتي بانا كله يا كينا وحكلو كينا وكشقيستا مسؤولين تا دكده جيبوتي وكشقيستا مدحوينها جيبوتي وكشقيستا جنرال زكري وكشقيستا ان خوبك Soomaaliya soo galiya misaal baan ku siinaya labadii kun iyo 13 madaxweynaha guriga uu degan yahay ka gaadaal waxa ku dhacay مدفع وصوت حب وين بقى وصل بفوق قولي مدحونو كده كي هذا موسى باش على بقول متر بده دحديده ayuu ku dhacay madaxweynaha waa la orday waxa laga xiraayada xaaskana waxa jira guriga meel qosol dadka lagu basement-iga ya la gash nafar baa gash yaalkii xaaski بعد 2 saacadood kadib waxa la doono waxa la ogaaday inuu markab Spanish hubka tuuray marka Spanishka maxaa ku tuuray iga siibtay وقف سامي وسيكون أنت عودين مكفك هذا ميزة كم فكر يا بعريد أو بعض هنا هيسجل واحد رادو سيادة إن الدولة ما ممكن قاعد كويس وقت قدر يس هذا تمر كم حد عاي كهر دور بلاد مركب جينا أو هو بسيدا يا حدود الجبوتي سوقي أنتوا نجيبوا يمويان وتوتي مريك وقبتي وبكي حلوين يا أخي قطعوا كان وحروح نقود جيبوتي يا كعصلي دولة جيبوتي مريك وحو باري سنة كهر إن جيبوتي مريك شينا هوب كتبست هوب كينو ولي اللي كفلا كنت عالمي كذا وإنه ولي استعمال هوب كان عيجيني ساعة مريك وحا كنا لنا سؤال بهم جيس كافري كورد بيانا يا كورانا هو اللي تجيب هل وحا نبهنا ورقدنا سوق هذين أنكو حسابتمي كرمو يا هوب كان مسؤولين ورقدي ما سوق هذه waxa soo qaaday generalka ciidanka way diideen way socotay markii dambe ugu dambeeyay madaxweynaha yaa soo qoray okay waxa haystay ku document soo fiilat hanta meel ay saaran yaadeen baxay ya cadana haystaan hubkii intee la geeyay dambe hubkaas waxa shakilayn ciidanka cirku waxay soo ibsadeen 3 diyaaradood 2 diyaaradood muhiim ah oo xarago iyo dhoofka wuxuu soo saaray generaalku Zakariya diyaaradan waxa uu soo iibinay madaxweynuhu inuu ku sharsharo ku raaxaysto ma ciidan baa madaxweyne diyaaradu ku raaxay ku soo iibsada maya diyaaradan wax kale ka shaqeyn doonta inay xamar tagto inay meelaha tagto inay meelaha fariisto hubka qaato meelaha hubku mamnuuc ka inay iibsado waa diyaarada ku qortay ciidanka Djibouti kaadi dawladdu ma fariisanayaan laakiin Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedku aad baa socdaan وين قرنتها جميع بعض تقارير الدنيا إنه كشقيست لبا أرمود مدحوينها جيبوتي إنه كشقيست هبكة هي عدين العقدة
meelaha lacagta lagu kala bedelo lacagaha la soo xado in midna markii tawrada masalan dhacday rag baa lacag soo xaday ragii mubaarak milyaarada Djibouti la yimaadeen markii milyaaradii la yimaadeen lacagta ka dhigay waa nadoo socdaaleen waxay yiraahdeen waxa la sameeyay banka tawxiid wali magaca cajiiba banka tawxiid bankii baa la sameeyay markii bankii la sameeyay waxa la yiri waxaan dhisaynaa guryo Djibouti real estate guriyii baa la bixiyay xaafadda la 13 ayaa laga bixiyay jawooyin waaweyn degdega Djibouti muxuu farmaajo kula dagaalamay sir culus ayaa la kashifay oo ku aadan in dawladda Djibouti markii horeba aysan ka go'nayn in Soomaaliya ay ka dhalato dawlad cagaheeda isku taagta farmaajona waxa uu jeclaa in la helo Soomaali oo mideysan isla markaana had iyo jeer dawladnimada cagaha isku taagto laakiin waxa jiray arrimo kale oo dadka qaarkii ku jahwareersan yihiin dawladda Djibouti waxay ka mid tahay dawladaha diidana in Soomaaliya ay ka dhalato dawlad la isku raacsan yahay isla markaana ciidankeeda uu yahay mid dhisan taasina uu ka soo horjeeda hadii ciidanka dawladda la dhiso waxa meesha ka baxaya ciidamada Djibouti Uganda iyo Burundi taasi uu arkay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele in dhibaatooyin waaweyn uu kala kulmi karo haddaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha Djibouti labadooduba xagga aragtida marka la fiiriyo waxyaabo badan ay kala aaminsanayeen inkastoo ay suurtagal tahay in dadka qaarkii arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ay si kala sheekada u dhigaan haddaba saaxiibalintan u gudagal marka waxaan ka dalbanaynaa channelka Markacadey TV subscribe inaad dhahdo gambalelkana aad furato si ay idin soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno haddaad horey noola joogtana madaxaad inoo saaran tihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo heesaana qaybta comment inoogu reeba sheertana ku sii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale haddaba madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele ayaa hadda waxa la tilmaamay in isaga naftirkiisa sir iyo xogo macluumaad la kashifay mar hadii uu ku dhiiraday in dawladda Djibouti ay cadaawad ka abuurato dawladda Soomaaliya xilligii uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba Ismaaciil Cumar Geele waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta raba in uu arko siyaasi isagoo ku danaysanaya danaha Djibouti mahane wax kale aanan fulinaynin taasoo dadka qaarkii ku tilmaameen in dhibaatooyin waaweyn ay geysanayso haddaba su'aalo badan ayaa la iska weydiinaya jiritaanka wararka la isku haysto inkastoo xaaladaha jira marka dib u milicsato ay ku soo sawirmayso in madaxweyne Farmaajo laga qaldanaa isla markaana qof walba oo siyaasi ah uu doonayo inuu raaligelin siiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba madaxweyne Farmaajo ayaa hadda shaashada kala socda waxyaabaha ka soconaya gudaha dalkeena inkastoo siyaasiyiinta qaarkii ay u arkaan in Ismaaciil Cumar Geele wax dana uusan u haynin Soomaaliya isaga kaliya inuu dantiisa mooye dana kale uu fiirsado marnaba had iyo jeer waxa uu ku mashquulaa siduu isaga ku soo laaban lahaa Ismaaciil Cumar Geele ayaa hadda lagu eedeynayaa in markii horeba uu jiray cadaawada kala dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Farmaajo laakiin dadka qaarkii arrimo badan ay tilmaamayaan waxay arrinkan ku qodontaa suurtagalnimada eedaha la isku jeedinayo iyo xaaladda sida ay tahay marka dib loo milicsado iyo qiimeyn marka la sameeyo haddaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli muusan ka hadlin eedan loo jeedinayo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele isagoo inta badan jecel in arrimahan oo kale uu ka hadlo su'aalooyin badan ayaa isbarbar socda oo u baahan in falanqeyn dheer lagu sameeyo si markaasi loo ogaado loona turxaan bixiyo xaaladda markaasi taagan iyo suurtagalnimada waxyaabaha la isku haysto haddaba madaxweyne Farmaajo ayaa hadda u biratumanaya sidii uu Muqdisho ku soo gaari lahaa uuna u bilaabi lahaa campaign ama olole doorasho si 3 sano kadib uu qayb kaga noqdo musharaxiinta u hanqaltaagaya in ay u tartamaan hoggaanka ugu sareeya dalka hadii taasi ay dhacdo dad badan oo siyaasiyiin ayaa isaga baxaya siyaasadda Soomaaliya
haddaba saaxiib yaal adigana daawanaya aragtidaada waa inoo muhiim fikirkaagana xor baad u tahay qaybta commentiga waad nagula wadaagi kartaa aragtidaada sidaad u aragto hadalka siyaasigan fashilaya xogo macluumaad oo ku aadan in markii horeba Ismaaciil Cumar Geelo uu la dagaalamay madaxweyne Farmaajo ay tahayba sidii Farmaajo uusan u dhisi lahayn ciidan tayo leh haddii ciidankaasi la dhisan waxaa meesha ka baxaya ciidamadii Djibouti hubka ciidanka Soomaaliya ma taqaana hubka Ruushka ka baxo hubka Sacuudiga ka baxo hubka Masar ka baxdo yaa la isku soo ururiyay meesha hubka dowladda ku sameeyay hub waa weyn lama haysay hambo 20 diyaaradood ma haysay ciidanka cirku maraakiibta baddu ma badnayn laakiin ciidanka dhulka infantry-ga ahaa ciidanka tagay Soomaalinimada cirka maraysa marka aan iman Mareykanka Pentagon la kulanno oo madaxweynaha Mareykanka la kulanno oo wasiirka arrimaha dibadda la kulanno haka diblomaasiyaddu ma aha dhaqan luqadda fiican oo sheekada iyo waa iska hadalno taasi qaacidada la haysto yani ma baajaas waa ku number 2 waxa weeyaan waa faqsanahay in Soomaaliya inta aynan dawlad macquul ah ayna ka dhalan hubka lama ogolaanayo حتى حديث عادي الله أعطاه دولد وين دولد معقولة نقطة سوماليا هبك سوق لا وحاولت تجير لبا قلوب dad waxaa jira dad ka shaqeysa hubka ganacsi dadkaasi waa Yamani baa jira dad Yamani oo la yaqaanaa jira waxaa jira dad reer Djibouti oo ka shaqeysta mas-uuliyaha waaweyn oo Mareykanka uu qabtay oo arkay waxaa ka sheegi doonaa waa labo marka waxay soo marsiinayaan ciidamada jooga dalka bay soo marsiinayaan mas'uuliyiinta si tasallul oo soo marsiinayaan aduu Yemen waxay ku imanaysaa dooniyo hadii la qabtana waa la qabtaa hadii la soo baxdana soo baxday laakiin waa dad weyn oo Djibouti cilaaqo leh oo Yemen fadhiyo jaadka Djibouti keena qaad baa la keenay hubba lagu soo qaaday kaasti weyn oo weyn ragi Ali Abdullah Sahel shaqeysay weeyaan oo Djibouti baana ku leh yaa keena waxaa kale oo keena oo ka shaqeysta mas'uuliyiinta dikada Djibouti waxaa ka shaqeysta madaxweynaha Djibouti waxaa ka shaqeysta General Zakariya waxay ka shaqeystaan in hubka Soomaaliya soo galiyaan misaal baan ku siinayaa 2013 madaxweynaha guriga uu degan yahay ka gaadaal waxaa ku dhacay midfac ugu soo hub weyn baa lagu soo gaday guriga madaxweynuhu ka degan yahay Muuse meesha dhacdo 100 mitir badda dhexdeeda ayuu ku dhacay madaxweynaha waa la orday waxa la geeyay xero ciidan xaaskana waxaa jira guriga meel hoosol dadka lagu basement-iga yaa la gashay nafar baa la gashay yaalkii xaaskii bacda 2 saacadood kadib waxa la doono waxaa la ogaaday inuu markab Spanish hubka tuuray markab Spanishka maxaa ku tuuray iga siibtay saabir waa say ku antacoodeen muu ka fakaday mise kama fakariyaa baareed oo baanta inaad haysatid waxa dhacdo siyaada inaad dowladda maamulkeeda gacanta ku hayso waddanka oo dhan arrintan markaa maxaa dhacay ka hor dhowr bilood markab China oo hub sida ayaa xuduudda Djibouti soo galay intuuna China iman weeyaan oo soo tegay Mareykanka uu qabtay hubkii waxa lagu yidhi ka wada hubkan wuxuu dhaxan ku wada Djibouti iyaa ka codsaday dowladda Djibouti Mareykanka wuxuu baaray sanad ka hor in Djibouti Mareykanka Shiinaha hub ka soo iibsatay hubkiina weli yaalo ku filan oo ku dagaalami karto waxayna weli isticmaalaan hubka kale ay geenaysaa Mareykanka waxaa ku dhalanaya su'aalo badan geeska Afrika oo dhan yaala yaa ku dhalanaya xawla joojiba waxaan u baahanay waraaqadina soo qaadin aan ku xisaabtami karno iyo hubkan ku soo dhiibay waraqadina la soo qaaday madaxweynaha waxa soo qaaday generaalka ciidanka way diideen way socotay markii dambe ugu dambeyntii madaxweynaha yaa soo qoray okay waxay haystaa document soo ay fiilaad hadda meel ay saaraan cadeen baxay ayaa cadeen haystaan hubkii intee la geeyay dambe hubkaas waxaa shakilayn ciidanka cirku waxay soo iibsadeen 3 diyaaradood 2 diyaaradood oo muhiim ah oo xarago iyo dhoofka wuxuu soo saaray generaalku Zakariya diyaaraddan waxaan u soo iibinay madaxweynuhu inuu ku sharsharo ku raaxaysto ma ciidan baa madaxweyne diyaaraddu ku raaxay ku soo iibsada maya
diyaaraddan wax kale ka shaqayn doontaa ka shaqayn doontaa inay xamar tagto inay meelaha tagto inay meelaha fariisto hubka qaato meelaha hubka mamnuuciya ka inay iibsado waa diyaaradda ku qorantay ciidanka Jabuuti dowladdu ma fadhiisanayaan laakiin Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedku aad baa la socdaa wayna ku qoran tahay jamiicul baatay taqaariirta dunida in uu ka shaqaysto laba arrimood madaxweynaha Jabuuti inuu ka shaqaysto hubka iyo cadaynta lacagta meelaha lacagta lagu kala bedelo lacagaha la soo xado in markii towradda Masar ay dhacday rag baa lacag soo xaday ragii Mubaarak milyaarada Jabuuti la yimaadeen markii milyaaradii la yimaadeen lacagta ka dhigay waa la daba socdaa waxay yidhaahdeen waxaa la sameeyey banka tawxiid weli magaca cajiiba banka tawxiid bankii baa la sameeyey markii bankii la sameeyey waxaa la yidhi waxaan dhisaynaa guryo Jabuuti real estate guryihii baa la bixiyey xaafadda la 13 ayaa laga bixiyey jawooyin waaweyn madaxweynuhu u furay guryihii waa la dhisay laakiin lama dhisin toban aqal baa waxay ka dhigan tahay waa caddayn waxay adduunka galaysa in Jabuuti guryo laga dhisay macaashkii guryaha ka soo baxay lacagtii iyadoo xalaal Masar ku noqon marka waa la xalaaleynaya irtay lacagtii Ciraaq oo kale hagan imatay tii Yaman oo kale Ali Abdullah Salih ati oo dhanka joogta banka laga furay Jabuuti Ali Abdullah bank iyo ka furtay dadkiisu bagaraysa lacagtii markii dhaceen Tigray lacagtii hagan imatay waxaa loo yaqaanaa meesha maartay bawr ka duwan maxaa dhacaa marka bawrada meesha oo muftaraqa duruqa maxaa dhacaa afka Ingiriiska meesha oo maartay bawrku ku kala weecdo transaction ku kala qaato Jabuuti waxaa dhacdaa meesha transaction baabuurada ee lacagta lagu kala duway adduunka kala macruuf ah marka labada shay ka shaqeysaa hubka iyo maartay iyo mar hore marka biibsadeen sageenina maal qabeen oo Jabuuti marka biibsadeen boosaasa berigi itixaadka ay ku geen jireen hubka shirkii dagaalka itixaadku inay qaadaan ay abuurmeen xagee lagu sameeyay dagaalka shirka Jabuuti lagu sameeyay Jabuuti marka wax badan baa ka socda marka Jabuuti waa meel wax lagu kariyo waxa lagu karinayaa Ismaaciil wuxuu moodaa inuu qarinayo laakiin adduunku la socdaa marka meesha tan dadka hubka keena waxa kamid ah Etoobiyaanka kamid ah dad Etoobiyaanka keena hubka dad Kenyaana hubka keena soo waxa garatay ma gartay hubka imika waxa soo socday Fagner inay Jabuuti iyo Soomaaliya bato loo qorneed meelaha inay Fagner ku yimaadeen Soomaaliya ku qorneed iyo Suudaan markay imatay marka meeshaati waa meel ka dhacayso waxaa soo dhalay ka jira gartay marka waxaan sheegnay Yemen iyo Ethiopia Yemen iyo Djibouti meelo kale ma jiraan ay soo mari karaan hubka si farsoodii ku soo mari karaan ay Soomaaliya ka soo galaan dabcan waxaa la sameeyaa dadka hubka inay iibiyaan doonaya waxay sameeyaan bayna ka shaqeystaan doonaya waxay sameeyaan maxaataad ay hubka sii mariyaan warkaa Djibouti iyo Yemanta waa la hayaa soo maha Masar waxay rabtaa inay hub keento Soomaaliya hub geliso dad ay leedahay ay hub gaadhsiiso ayay marnaysaa markaa Djibouti soo marnaysaa Soomaaliya maraysiis way kulmeen way ka shaqeysaa waa la yaqaana waxaas oo dhan waxaa la rabaa inay matalan qolooyinka maaragtay loo yaqaano tujaaru silaax halkay soo marnayaan markaa Djibouti soo marnayaan Djiboutina waxaa ka shaqeysanaya saddex nin ugu culus madaxweynihii waa ninka dikada xakumo dikada Djibouti maamula iyo janarka ciidanka maamula saddexda sulaasigaas yaa ka shaqeysanaya ama xawaa ma qaban kara marka hay'adda yaab kale waxaa kamid ah ayaan dhaweyto wuxuu magacaabay ninka uu dhalay jananku waa inankiisii ah korneyl laga dhigay 10 sano wax yar buu korneyl ku gaadhay korneyl markuu gaadhay waxaa loo magacaabay arrimaha logistic oo dhan ciidanka arrimaha buu ka shaqeynaya waana meesha ugu dhaqaalaha badan Africa logistics marka laga hadlayo waxaasoo dhan loo magacaabay markaasi waa waxyaalo cajiib weeyaan waddan aanan Soomaaliya iyo Djibouti waxa weeyaan waxay saaran yihiin maxaan ku dhahdaa safaha hada meesha marka volcano markuu qarxay maarad dusha sare halkaas saaran ulk
inay la boodaas markacadda TV aan naga daawanaysan saaxiib beeladaad ugu cusubtiin subscribe dhaha gambareerkana furta si ay idin soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigna haddaad horey noola joogtana madaxaad inoo saarantiin dhaliil ammaan bogaadin tale iyo tusaalaha dad inoo heysaan qaybta commentiin oo ku reeba sheertana ku sii qabta si aan u helno saaxiibo wanaagsan adiga oo kale baa nabadonka tuugrada Soomaaliyeed xaaji duco idile waad ku maasantihiin daawashada muuqaalada xiisaha badan ee aan soo bandhigno muuqaalkan kiis xiga intaanu ku kulmi doona anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.